السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الكسور وهذا مقال عصب وإنه كجهل الدون ماسونية مع فري ماسونري. ماسونية دودتك بدن كذا مسيحين إنك كترس مصلحة دتك موضوعا وآدو مهم بالشدة صومالي ملك ستاي شكتبه. فضلا موضوعا إنه كجهل الدون هتحرع إن هذه جوان هيسن كي دين هذا في عن هدي جوان ستين بعدنا واحد كوبعد على لغة عربية هدي كلا واحد لكل مدون مقالات كوكو حنايا. markaad baadhaysana waa inaad isticmaashaa VPN ama Virtual Private Network. Maasuuniyadu waa munadamad ama urur qarsoodi ah oo ay leeyihiin Yuhuuddu. Waa urur argagixiso oo aan la aqoonin oo ujeedadiisu tahay in Yuhuuddu caalamka maamusho. Waxaanay ku baaqayaan inaanu wax Ilaahay jirin wax kasta oo aad ujeedadaad ku gaadhisana ay ku banaan yihiin. Iyagoo ku gabanaya shicaarada ama astaamaha ay ka mid yihiin sinaan, xorriyad, walaalayn iyo bini'aadanimo. dadka ugu waaweyn ee ka tirsan munadamadani waa dadka caalamka magaca iyo sumcadda ku leh kuwaas oo ah qaar lagu kalsoon yahay inaanay xogta munadamadan dibadda u saari doonin. Maasuuniyadu waxay qabsataa maxaafil ama kulan ay iskugu yimaadaan xubnaha u sarreeya munadamada kuwaas oo ay ku qorsheeyaan hawlahooda. Hawlahaas oo ay ugu muhiimsan tahay inay dhisaan xukuumadda ku dhisan nidaamka jamhuuriga ah oo aan wax diin ah shaqo ku lahayn. haddaynu eegno afkaarta iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin maasuuniyadu ma aaminsana Ilaahay iyo rusushiisa iyo kutubta uu soo dejiyay iyo sidoo kale waxyaabaha qaybka ah ee aanay dadku ogaan karin sida qiyaamaha iyo aakhira. waxaanay ku tilmaamaan khuraafaad iyo sheeko barale aanay waxba ka jirin in ay ridaan oo ay baabiyaan xukuumadaha ku dhaqma sharciyada diineed iyagoo gacanta u gelinaya xisaabta bilaadiinta ah sida cilmaaniyiinta sida khilaafadii islaamiga ahayd ee Cusmaaniyiinta ee Turkiga oo ka talin jirtay meelo badan oo caalamka islaamka ka mid ah iyagoo ku bedelay nidaamka cilmaaniga ah ee Kemal Atatürk in ay kala qaybiyaan ummadaha caalamka ee aan Yuhuud ahayn iyagoo u kala qaybinaya qabiilo ama jabhado ama xisaab ay iyagu hubeeyaan si ay u fushadaan ujeedooyinkooda siyaasadeed sida xaaladda ka jirta Soomaaliya oo kale waxay isticmaalaan laaluush si loogu soo biiro ururkooda gaar ahaan dadka xilalka ka haya wadamada kala duwan ee caalamka si uu ugu fuliyo wax kasta oo ay uga baahdaan xayndaabkiisa. qofkii ay arkaan inuu ka soo horjeedo ama aanay wax dambe uga baahan doonin way khaarijiyaan si kasta oo ay suurtagal ugu tahayba si aanu u faafin sirahooda. haddii uu qofku doonayo inuu ku biiro maasuuniyada waa inuu ka go'aa wax kasta oo ku xidhaya dhaqankiisa, diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyaga oo quraatana uu ka amar qaato. waxa ay xiriir la sameeyaan shakhsiyaadka caanka ah sida mulkiilayaasha shirkadaha, warshadaha iyo aqoon-yahanada si ay shaqooyinkooda ugu dhamaystirmaan dhinac walba. maasuuniyadu waxa ay gacanta ku hayaan aaladaha loo isticmaalo warbaahinta iyo social media oo dadka intooda badan ay isticmaalaan waxaanay taasi u fududaynaysaa in ay ogaan karaan qof kasta oo ay u baahdaan. waxay maamulaan munadamadaha dawliga ah iyagoo madax uga dhiga qof xubinka ah maasuuniyada sida kuwa qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada iyo sayniska. qofka ku soo biiraya waxa ay ku soo dhaweeyaan jawi cabsi leh waxa loo geeyaa madaxa munadamada isagoo indhaha ka xidhan waxa la geeyaa qol madow halkaas ayaa lagu dhaariyaa inaanu sirta munadamada cidna u gudbin doonin. kadib indhaha ayaa laga furaa isagoo qoorta lagaga hayo sayfo qolkana ay yaalaan lafo iyo madaxyo bini'aadan si ay uga cabsiyaan xubinta cusub waxaanay siiyaan astaanta munadamada halka dadka qaarna sheegaan in qofka loo adeegsado sixirka madow si aanu uga bixin munadamada. wali lama hayo cid ka baxday oo ka soo horjeedsatay xukunka munadamadan madax ha ahaato ama shicib ha ahaato oo ku dul nool dunida. haddaba waxa hubaal ah inay maasuuniyadu ka dambayso dhibaatooyin iyo dagaalo ka dhacaya caalamka islaamka oo dhan oo ay tusaale u yihiin halkii ku dambeeyeen dawladihii islaamka ahaa ee Filistiin, Suuriya, Ciraaq, Yemen iyo kuwa kale oo lala wareegay oo la biliiliqaystay kheyraadkoodii iyo dhulalkoodii. inkasta oo mabda'ooda diineed yahay Yuhuud oo ay doonayaan inay dabar gooyaan diimaha kale oo dhan ayaa haddana islaamku yahay diinta ay warwarka ugu badan ka qabaan. culimo badan oo islaam ah ayaa ka digay mabda'a maasuuniyada oo uu ka mid yahay imaamkii weynaa ee Nasiruddin al-Albani. fadlan mawduucan hadduu ku cajibiyo u sii gudbi walaalaha si ay uga feejignaadaan khatarta iyo dhagarta Yuhuudda.